السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان soo dhawaada gabdhaha quruxda badan oo igu xiran meel walba joogtaan waxaan leeyahay ku soo dhawaada channelkan waxyaabo badan ayaa ka heli doontaan insha Allah haday ku tahay markooda ii timaadid subscribe isaar ii like garay muuqaalka maanta waxaan wadaa gabdho wax in badan aad sugeyseen wax badan ani tiri doono insha Allah cashirkan aad uga faa'iideysta waxa halkan aad uga jeedaan waa sisin la shiiday sisinta waa waxyaabaha aadka loogu isticmaalo in ilmaha lafahooda aad ay u koriso midda kale caruurta miisaan la'aanta heeso aad u weyn ay miisaankooda uga qayb qaadataa sisintan waa sirta hooyo kasto anfici doonto haduu rabbi idmo ma haysataa caruur yaryar oo naas nuugo ma haysataa caruur ka waaweyn oo naaska ka go'ay iyo caruurta kale oo wax barato dhammaan uga faa'iiday insha Allah waxyaabo badan oo fawaa'id ah ayaa ku jira sisinta waxay leedahay calcium waxay leedahay dufan dabiici ah waxay leedahay miisaan kordhin waxay leedahay lafaha aad u weyn inay uga qayb qaadato inay koriso hooyo waxaan leeyahay ka faa'iideyso sisintan waxyaabaha ay tarto aad u weyn ay u badan yihiin qaabab badan oo loo sameeyo ayaa jirto sisinta balse ani maanta waxaan soo gudbinayaa qaabka ugu sahlan oo laakiin ugu waxtarka badan hooyo kastana aad u anfici doono qaabkaas haday sameyso sisinta waxaad sameey kartaa marka koowaad waad soo qaadanaydaa waad iska dhaqee waxa ku qalajinaydaa marka dabka ilaa iyo 5 daqiiqo xoogaa yar waa dubaysaa sida waxa u dubaysaa maxaa la yiraahdaa marka sirilaaga la diyaarinayo kale waa qalajine dabka inuu ka dafan lama rabo waa in kalarkeeda uu ku joogo yacni inuu ka guban laakiin wax yar oo kafaay ah ay yeelanaysaa ma fahamteen ka bacdi waxaad sameynaydaa waa ka dajinay waxaad soo qaadanaysaa blenderka loogu talagalay waxyaabaha budada ah ama powderka ah in lagu diyaariyo blenderkaas ayaad ku shiidaysaa markay ku noqoto powder ayaa waxa sameynaydaa weel dabool leh oo kale ayaad ku shubanaysaa laakiin isla markii mid dabooleysid waayaad daboolshid way ka halaabaysaa oo isla markaas aad isticmaalin aad weyn waxa u fiican marka hadii xoogaa fiican aad sameysatid in muddo 15 daqiiqo camal ah ay ku taalo meel ay keeli karto leero kale ama qabow kale inaad dhigtid si ay uga baxdo hawadii ku jirto oo kululeed ka bacdi waa daboolanaysaa marka waxaad sameynaysaa subax walbo alseedi ilmahaaga markaad siidid waxaad sii lahayd oo quraac ah haduu ku aadayo waxbarasho iyo hadii kale oo cunuga guriga ku joogo waxaad u sameynaysaa marka 2 qaado oo sisintaas ah oo qaadada cuntada lagu cuno ayaad waxa ku sameynaysaa waa ku soo darsanay waxaad diyaarsanay marka caano qandac ah oo full cream ah ama full fat ah caanaha ama caano fresh ah noqdaano ama caano kale oo babygaaga aad siidid ama caruurta kale aad siidid ha noqdaan waa laakiin bishardi inay noqdaan caano qandac ah oo kulul yacni kuleel lagu cabi karo oo kunjir ah kabacdi 2 qaado oo ahayd sisinta ayaad ku qaseedaa waxa kale oo ku darsanaydaa 1 qaado oo malab ah intaas ayaa si fiican ugu darsanay macnaha isugu qaseedaa malabka hadaad duntid waa iska dhaafi kartaa wax kugu qasbay malaha caruur waxa jiraan malabka aad u nacab oo macnaha kula laboodo waa ka jooji kartaa ilmahaaga aad taqaanid kulay wax walba ay cuni karaan ay wixii cuni karin kadib sisinta iyo caaniga kula marka isku qastid oo si fiican isugu qastid ma miireysid waayo sisinta ayada powder ah way ku milmaysaa caanaha laakiin xoogaa yar kor ay wixii soo yeelanaysa macnaha wax xoogaa kalar ah oo sisinti waxyaabiye qashinkeeda camal ah laakiin wax dhuunta ilmaha dhibayo ma aha sidaas ay kuugu cabayaan subax walbo waad siinaydaa muddo week ah saasida ku wadid insha Allah waxaad heli doontaa natiijo ku cajabiso haduu rabbi idmo mana ahan wax qiyaali ah oo been aan kaaga sheegayo waa wax aan ka hubo إن شاء الله واحتركوده عروض يرير أو حكوسو هرتي ناس نوجين تكوجرا أما محل يرادا يرير والله بعض السنة إلا أول حيو لحبلات كواس وحسمين إذا ملقعة ير أو لغسيو عنتوين كعروض يرير بيبياشة اللي بدي إذا مر أيكوسو قاضي
caanahooda oo qandac fiican ah ayaa ku dhex daray. waa kuruxe waxa waaye waa kishi, macnaha waa ka miireysaa, ma fahamtay? waa ka miire ilaa ay si fiican uga miiranto, waayo carabkooda ayaga ma xamili karo, way matagayaan ama way tufayaan, labadaas mid ay noqonayaan. caruur kale oo iska cabana way jiraan, laakiin haddii aad ku aragtid inuu nacayo beebigaaga uusan cabeynin, cinjirka masaasadan badanaa ma kasoo bixeyso, haddii oo aan shaqshaqin ma kasoo bixeyso ama la miirin. marka si ay cinjirkaaga soo baxdo waa inaa miirtid oo masaasadii ay kuugu sahlanaad hadhowti cunugaaga markuu kuwa cabayo caanihii sisinta lahaa inuu ka helo si raaxa leh inuu cabo. ma fahamteen gabdho? marka gabdho, sisinta horta qaabkaas ugu fiican qaabka loo sameeyo, laakiin waa in aad siidid caruurtaada subaxi hore markii aad quraacdi aad sii lahayd aad siidid, waa in aad siidid isna qabow aysan ahayn, ay noqoto qandac fiican ay ku cabi karaan caruurta. maasha allah, isbedel fiican oo waxaad heli doontaan insha allah, aad ku faraxdaan. hooyooyin badan fariimaha isoo direen waan arkay oo ilmaha ku saleysan. ilmaha mar walbo kubaba waa si samar badan iyo waxay u baahan yihiin dhaqdhaqaaq aada u xogan. marka hadaalin, ilaahayna tala saaro. waxyaabaha aan kuusoo gudbiyanay markasta waa waxyaabo natiijo fiican leh, waa waxyaabo aan hubo in hooyada sameyso wax badan ay ka faa'iidi doonto. sameey oo ku celceli si aad u heshid natiijadii oo aada ku cajabiso. hooyooyinka marka insha allah waxaan rajeynayaa inay ka faa'iideystaan kilibkan oo aada weyn ay uga faa'iideystaan, caruurtoodana wax badan ay ka taraan. kuwa hore u samey jiran hoosa kusoo qoraan, kuwan samey jirinna haddaa sameeyaan. sisinta caanaha lagu daray oo weliba ridqan, caano kululna lagu qasay. kulley wixii yaqaano aada bay u yaryihiin ayaan filayaa hooyooyinka yaqaano, laakiin waa maasha allah tabaaraka raxmaan. wax badan oo waxaa ku jira fawaa'id ah, wax badan oo waxaa ku jira ilmahaaga si xoogan ay kuugu korayaan, lafahooda ay ballaaranayaan, lafo dhaadheerna ay kuu noqon doonaan insha allah. waa haddii aa mar walba u daa'intid. wax walba oo la daa'imana sidooda dhib ma keenaan haddaysan ahayn wax kiimikaal ah, wax in ay ka qaadaan mooyaane maxaa la yiraahdaa wax fiican inay ka helaan oo ah fitamiinaadkii oo dhameystiran. sisinta waxawaa caanaha xitaa ayadaa ka waxtar badan, nafaqooyinka ku jiro ama calciumka ku jiro caanaha iyo ayada calciumka ku jiro ayadaa aada u badan. natiijooyin badan ayaadna ka heli doontaa insha allah, waayo waxyaabaha ku jira ayaa qani ah, waxyaabo aada u weyn caruurta u anfacayana waaye. siyaabo kala gedisanaana loo sameeyaa oo ilmaha loogu sameeyo. waxaa jiraan oo kale ayadoo loo sameynayo sida loo diyaarinayo batarka camal, ama waxyaabaha caruurta loo mariyo rootiyada ama malawaxa, ama haddii kaleeto jabaatigoo kale ayadoo kareem ahaan loo isticmaalayo ayaa jiro. qaabkaas insha allah maraan isoo gelin doonaa hadduu ilaaha idmo, laakiin qaabkan aada weyn ayuu ku anfici doonaa. marka gabdha, muuqaalka intaanu noogu egyahay. intaan hadaanila soo gaartay subscribe ii saar, ii sheer gareey, ii like gareey muuqaalka hadduu ilaaha idmo, si hooyooyin badan oo u baahan muuqaalkan ay u helaan, adigana ay kaaga duceeyaan. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.